بسم الله الرحمن الرحيم. شركة نجرة إذا وحومانتو كسابسين هاي قيلدان كسعة قدوميها محكمة قبل كبنادر وقال أنها وزارة الديجان كي يسبدل كعملها وبحوي ذي كردي حرونتا إدجنتها. عباشة النوع حي كسعة قدوميها محكمة قبل كبنادر مدن صالح علي محمود لبا وزير كوزارة المالية مدن بيحي إيمان عيق وحقوق دعوة أولى حيث وزارة الديجان كيكريها صدح dhammaan madaxda dalka oo ugu horeeyay madaxweynaha jamhuuriyadda ra'iisul wasaaraha iyo gudoomiyaha baarlamaanka inagoo ah reer maxamed maxamuud nuur shuud waxaan codsanaynaa maxkamadda gobolka banaadir ka codsanaynaa in si degdeg ah u farageliso takrifalka xadka ka baxay ay wasaaradda deegaanka si joogtada ah ugu hayso kireeyaha xarunta Villa Amal waxaa jirtay in maamulka wasaaradda deegaanka ay jabiyeen heshiiskii kireynta oo ay caado ka dhigteen in sanadkiiba 5 bil kiradeeda ay shubaan taleefanadiina ay ka jawaabi waayeen loona diiday kireeyaha inuu xarunta ku soo booqdo maadaama ciidanka ilaalada wasaaradda aysan amar u qabin in iridka uu ka soo galo ama ay ka soo daayaan ruux aan maamulka wasaaradda soo fasaxin sidaa daraadeed dantu waxa ay ku kaliftay in kireeyaha qareen uu qabsado oo dacwad laga furo maxkamadda bishii May 2024 bilooyin kadib wasaaradda deegaanka ayaa is hor istaag ku samaysay dacwadii maxkamadda waxaa jirta arrin xal loo laayahay ilaa iyo haatan taagan taasi oo u baahan in ay soo farageliso maxkamadda gobolka banaadir iyo wasaaradda maaliyadda taasi oo ah in lacagtii kirada 2023 aan kireeyaha la siinin waxaa jirta oo inagu maqaalo ah in agaasimaha maamulka iyo maaliyadda ee wasaaradda deegaanka Mr. Cabdiraxmaan Maxamed ugu yaraan 8 oday oo nabadoono ah ka hor qirtay in lacagtii kirada 2023 wasaaradda maaliyaddu bixisay laakiin ay wasaaradda deegaanka qarash ku bixisay iyo sidoo kale wakiilo tagay xarunta wasaaradda maaliyadda loona soo xaqiijiyay in wasaaradda maaliyaddu bixisay kirada 2023 oo wax kira markaasi ku qaban dhinacooda waxaa jirta in maamulka wasaaradda deegaanka uu wargeliyay kireeyaha in wasaaradda maaliyadda diiday in ay bixiso kiradii 2023 laakiin ay hay'adaha samafalka warsan doonaan in kirada la bixiyo lacagtii kirada 2023 sideedii bay weli ugu maqan tahay kireeyaha waxaa kaloo jirta lacagtii kirada ee 2024 oo ay wasaaradda maaliyadda bixisay in wasaaradda deegaanka lacag ka soo goosatay ilaa iyo haddana cadayn la imaan weyday markii kireeyaha uu dhammaan wada bixiyay canshuurta daaraha ee ku waajibtay kireeyaha waxa uu cabasho weyn ka qabaa habdhaqanka wasaaradda deegaanka oo ah arrimaha soo socda 1 wasaaradda deegaanka in aysan bixin kiradii 2023 ee wasaaradda maaliyaddu ku waajibisay in ay bixiso 2 lacagtii kirada ee 2024 in wasaaradda deegaanka lacag ka goosatay oo cadayn qoraal ah diiday in ay la imaato iyada oo kireeyaha canshuurtii daaraha ku waajibtayna uu bixiyay 3 wasaaradda deegaanka ayaa ku dhiiratay in ay dhirtii xarunta Villa Amal caanka ku ahayd ay halis u gasho in ay dhimato markii waraab la'aan ay ku dhacday iyadoo xaruntu leedahay generator weyn soona wargelin kireeyaha nasiib wanaag shakhsiyaad ka baxsan ayaa soo wargeliyay kireeyaha xaalad degdeg ah iyadoo ay ku sugan tahay dhirtii Villa Amal kadibna halkaas ayaa lagu badbaadiyay 4 waxay kaloo wasaaradda deegaanka ku dhiiratay inay waxyeelayso bilicdii xarunta oo darbiyadii laga markaasi fiiqay decorationkii ku dhiganaa banaankana lagu daadshay bishii October buu markaasi kireeyuhu xarunta dayactir ku sameeyay iyadoo wasaaradda deegaanka cilado badan u geysatay iskana markaasi xil saarin in ay dayactirto ciladahaasi ay u geysteen guriga kireeyaha waxa uu dayactiray isaga oo wax magdhow ah warsan lacagtii kiradana ay ka maqan tahay mar labaad buu kireeyaha dayactir ku sameeyay darbiyadii xarunta ee la waxyeeleeyay wasaaradda deegaanka shaqaale bay u soo markaasi kireysatay in ay waxyeeleeyaan bilicda xarunta haddana halis abay waxa xarunta ugu jirtaa in ay fal kaleeto uu ka sii dhaco 5 wasaaradda deegaanka waxa waajib ku ah in ay furaha markaas xarunta soo wareejiyaan 31 bisha koobaad 2025 taasi oo markaasi aan weli muuqan 6
maamulka cusub waa la wargeliyey in maamulkii hore dacwo lagu markaasi leeyahay ama deymo lagu leeyahay laakiin waa ay ka gaabsadeen waxaa kale oo jirta maamulka cusub in 3 sirti oo ballan u qabtay kireeyaha weyn ugana baxeen ballantii taleefanadiina ay ka xirteen ballantaasi oo ahayd in la wada markaasi loo wada tago oo shir lala qaato wasaaradda maaliyadda si ay markaasi damaanad qaato bixinta lacagtii kirada ee wasaaradda deegaanka markaasi ku baaqatay waxaan maxkamadda gobolka Banaadir ka codsanaynaa dhibka ay wasaaradda deegaanka u geysatay muwaadinka kireeyaha ah waa mid lagu xallin karo maxkamadda oo kaliya oo aysan ku sinaan doonin ama ku sidiin karin kirada oo la bixiyo aysan ku sinaan karin muwaadin kasta oo Soomaaliyeed xaq waxa uu leeyahay qadarin xaq dhowr iyo hantidiisa oo la magan geliyo wabillahi tawfiiq